Salaan dhammaan taageerayaasha kubadda cagta. Maanta waxaan idin haynaa warbixin ku saabsan dabaaldegii weynaa ee Arsenal ay ku qabatay magaalada London kadib markii ay ku guuleysteen horyaalka Premier League markii ugu horeysay muddo 22 sano ah. Boqolaal kun oo taageerayaasha Arsenal ayaa buuxiyay wadooyinka waqooyiga London si ay ugu dabaaldegaan hanashada horyaalka Premier League. Ciyaartoyda kooxda ayaa koobka ku soo bandhigay basas saqafkoodu furan yahay, iyagoo ku wareegaya wadooyin qiyaastii 5 mayl u jira oo u dhow garoonka Emirates Stadium. Kooxda haweenka Arsenal ayaa sidoo kale ka qayb gashay dabaaldegga kadib markii ay ku guuleysteen FIFA Women's Champions Cup, taasoo ka dhigtay munaasabadda mid gaar ah. Dabaaldegga ayaa yimid hal maalin kadib markii Arsenal looga adkaaday PSG finalka Champions League ee ka dhacay magaalada Budapest ee cariga Hungary. Si kastaba ha ahaatee, guuldarradaasi ma aysan hoos u dhigin farxadda kooxda iyo taageerayaasheeda, maadaama ay ugu dambeyn ku guuleysteen Premier League kadib sugitaan dheer oo 22 sano ah. Wadooyinka London ayaa isbedelay kuwa casaanka Arsenal ah, iyadoo calamo badan la lulayay, rashkana la adeegsanayay. Ciyaartoyda waxay si joogto ah ula falgalayeen taageerayaasha intii ay socotay socdaalka dabaaldegga. Dhanka ammaanka, booliiska London ayaa howlgeliyay in ka badan 500 askari si ay u sugaan amniga munaasabadda, waxaana la xiray 16 qof oo loo haysto dambiyo kala duwan, halka sidoo kalena la sheegay dhaawac ka dhashay weerar mindi ah oo loo adeegsaday iyo dab yar oo ka kacay hotel. Guud ahaan, waxay ahayd maalin taariikhi ah oo Arsenal iyo taageerayaasheedu ay muddo dheer sugayeen. Horyaalka ayaa soo afjaray 22 sano sugitaan ah, waxaana dabaaldegga London uu muujiyay sida ay guushu muhiim ugu tahay kooxda iyo taageerayaasheeda. Mahadsanidin daawadayaasha, ha iloobin inaad like saarto, share gareyso, isla markaana subscribe saarto kanaalka.